هذا waxaan soo xasuustay laakiin ma rabin inaan sheego. balse daawadayaal inta aana u gudagelin codka sirta ah ee laga duubay Farxiyo Kabayare halka aad nagala socotaan waa Masaal Media. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka markii kugu horeydana ay tahay subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaalada aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada. Fanaanada Farxiyo Kabayare ayaa soo xasuusatay xilligii hore ay iska bulada ahayd isla markaana cod ay ka dhex duubto qolkeeda ay markii soo gashay aad ula yaabtay katabaan gurigeeda dhex yaala markii aragtay isla markaana aysan ka warqabinba inuu katabaankani gurigeeda yaalo maadaama ay in muddo ah joogtay qurbaha isla markaana aysan la soconba waxa gurigeeda dhex yaala balse Farxiyo Kabayare ayaa markii soo gashay qolkeeda waxay ku dhex aragtay katabaan in muddo halkaa yaalay sababtar oo keentay inay soo xasuusatay sheekadii hore ee noloshii iskaabulonimada balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay xusuusta gaarka ah u leeyahay Farxiyo Kabayare katabaankani ay soo bandhigtay dhawaan. dadaan la xiriirnay oo ku agdhow Farxiyo Kabayare ayaa sheegay in Farxiyo iyo iyada ay wada deganayeen xaafadda Kaas Balbalaar wiilo dhalinyaro ah isla markaana ay meeshaasi maalin walba ku sheekaysan jireen xilligii iskaabulada la ahaa. Waad ogtahay markaad joogto magaalada Muqdisho aad joogto xilliyadii hore sida 2006 2005 ilaa 2000 xilliyadaasi oo dhalinyarada Soomaaliyeed ahaayeen kuwa si aad isku dhaxgala isla markaana sheekaysta darbiyada iyo jardiinada fariista guriga dhexdiisa laaduu ku dheela sheeko badan halka ku qaata iyo waqti badan faraka ciyaara isla markaana ku sheekaysta arrimihii maanta xaafadda ka cusbaa iyo qofkii soo shukaansi tagay ama ma aragtay xaafadda ku cusbaa maalintaasna lagu yeeri jiray boygi iyo xabadkii xaafadda soo galo kale. Farxiyo Kabayare ayaa noloshaasi ku tilmaantay mid si aad ay u xasuusato isla markaana la yaabtay. Farxiyo oo u muuqatay qof si aad ugu faraxsan noloshii hore ay soo martay ee guurka isla markaana hadda ah qof iskaabula ah ayaa mar kale dib ula yaabtay inay joogto magaalada Muqdisho isla markaana ayba soo xasuusatay iyadoo ku sugan xaafadda Kaasi Balbalaar oo la sheegay Farxiyo Kabayare inay ku soo kortay halkaasi ayna la joogi jirtay dhalinyaro badan balse dad badan oo ka mid ah asxaabtii Farxiyo Kabayare ayaa noo xaqiijiyay in Farxiyo Kabayare aysan la dhihi jirin barigii ay joogtay magaalada Muqdisho isla markaana loogu yeeri jiray Sahro. Waxaan helnay qof ka mid ah dadkii ay wax isla baran jireen ama dugsi quraanka oo ku sugan wadanka Uganda oo xiriir aan la sameynay ayaa noo sheegay in Farxiyo Kabayare ay la baxday magacaasi balse uu la yaabay kadib markii uu ogaaday in Farxiyo Kabayare yahay qofkani oo la baxay Kabayare isla markaana hore loogu magacaabi jiray Sahro. Farxiyo ayaa waxay magacani Farxiyo Kabayare la baxday xilligii ay tagtay magaaladaasi Mareykanka ee wadanka Mareykanka magaalada Minnesota iyadoo iska bedeshay magaceedii hore lana baxday Farxiyo Kabayare oo ay dadka inta badan uusan u aqoonin balse dadka ku cusub baraha bulshada ayaa si aad ula yaabay in Sahro ay la baxday Farxiyo Kabayare. Arrinta kale ee la yaab kale ayaa waxay tahay in Farxiyo Kabayare ay noloshaasi iskaabulonimada ay ku jirtay muddo fog haddana ay Farxiyo leedahay muddo aan ay isla joogeen fanaan ay kala tageen haddana ay u joogaan 3 caruur oo kula nool wadanka Mareykanka. Farxiyo ayaa sababta ay u soo xasuusatay katabaankaasi aan la garan karin balse dad u dhow oo la xiriirnay ayaa sheegay inay Farxiyo iyo dad kale oo ku sugan hadda wadanka Uganda kana mid ah kuwa ku jira xeryaha qaxootiga ay waqti ku wada qaadan jireen isla markaana halka ay ku wada noolaayeen in muddo ah. waa kan codka Farxiyo Kabayare balna la dhageysta sida ay ugu faraxsan tahay noloshii hore iyo xusuusaha ay sheegtay in Farxiyo Kabayare ay xasuusatay markii ay ku aragtay gurigeeda Ameerika katabaankii Afrika oo u yaala guriga balse aysan ka warqabin intii ay ku sugneed wadanka Mareykanka. Bal codka Farxiyo Kabayare ila dhageysta waa kani. هذا
waxbaan soo xasuustay laakiin ma rabi inaan sheego. Horta katabaan shima idinkugu dambeysay. Qolkaygaan soo galay gabdhaha. Katabaan shima idinkugu dambeysay. Ani katabaankaas markaan arko. waxbaan soo xasuustay. subxaanallah walaa qurba ku raaga dhib waaya. qurba haddaa ku raagtid waxyaabo badanaa kaa titirmaayo kaa dhaqmaayo. wixii markaa indhaha saartid ila muddo ka horaa kugu dambeyso waa iska qoslay moogta. asxaabta katabaankaas ma ujeedaan. katabaankaas waxbuu isoo xusuusiyey mar kalaa idinkaga sheekeynaa laakiin katabaan reer Soomaaliya iyo Afrika oo dhan kuma socoto sheekadan ya. reer America iyo reer Yurub ya katabaan shima idinkugu dambeysay. Ani katabaan haddaan indhaha saaro waa iska qoslayaa because waxbaan soo xusuusanayaa ya. mar kale idinka dabageynaa. Good night, okay. anoo katabaanka markaan arkay waxaan ku qoslayaa anoo idiin sheegi ayuu idinka dabageynaa. katabaan waryaada waxbaan soo xasuustay laakiin ma rabi inaan sheego. horta katabaan shima idinkugu dambeysay. qolkaygaan soo galay gabdhaha. katabaan shima idinkugu dambeysay. ani katabaankaas markaan arko. waxbaan soo xasuustay. subxaanallah walaa qurba ku raaga dhib waaya. qurba haddaa ku raagtid waxyaabo badanaa kaa titirmaayo kaa dhaqmaayo. wixii markaa indhaha saartid ila muddo ka horaa kugu dambeyso waa iska qoslay moogta. asxaabta katabaankaas ma ujeedaan. katabaankaas waxbuu isoo xusuusiyey mar kalaa idinkaga sheekeynaa laakiin katabaan reer Soomaaliya iyo Afrika oo dhan kuma socoto sheekadan ya. reer America iyo reer Yurub ya katabaan shima idinkugu dambeysay. ani katabaan haddaan indhaha saaro waa iska qoslayaa because waxbaan soo xusuusanayaa ya. mar kale idinka dabageynaa. Good night, okay. anoo katabaanka markaan arkay waxaan ku qoslayaa anoo idiin sheegi ayuu idinka dabageynaa. katabaan sida aad ku daawateen ama aad ku dhagaysateen codka waa Farxiyo Kabayare oo ku faanaysa ama maaragtay soo xasuusatay iskaabulanimadeedii, balse dadka qaar ayaa sheegaya in xilligii Farxiyo Kabayare ee codkan duubaysay ay cabsaneed isla markaana ay si aad uga dhacsaneed nolosha. ma xaqiijin karno sida codkani Farxiyo Kabayare uga baxay, balse waxaa codkani ka helnay dadka agdhow Farxiyo Kabayare. haddaba daawade haddii aad barnaamijka ku cusub tahay ama ka mid tahay dadka ku tixan Masaal Media, fadlan subscribe saaro channelka si aad ula socoto xogaha aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena inay u soo dhacaan waxaan baahino. Farxiyo Kabayare hadda waxay ku nooshahay dalka Mareykanka, balse waxaan sugnaaba sida ay Farxiyo Kabayare arrintan uga hadasho iyo xusuusta ay sheegtay inay nala wadaagi doonto. haddii uu Alla idmo waxaan idiin soo gudbi doonaa sida ay Farxiyo Kabayare u soo gudbido xusuusta uu leeyahay katabaankaasi guriga u dhex yaalay muddadii ay ku sugneed waddanka Mareykanka, balse ay hadda ku baraarugtay inuu gurigeeda dhex yaalo katabaankaasi.
halkani waa masaal media fadlan mar kale channelka subscribe saaro si aad ula socoto xogaha aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. waa ku mahadsan tahay daawashadaada waana kaaga mahadcelinaynaa inaad ku tixan tahay masaal media.